بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي والألب وإذن سلام يا إلهي ربي سبحانه وتعالى ميل كستي وكستان جوغنا الله ينا بركية، الله ينا حفظية، الله ينا دوره، الله ينا إن السلام يلو ربي سبحانه وتعالى جل في علا جل جلاله. run ahaantii indha waa la qaniimooyinkeennii aan kala qaniimaysan jirnay waa la iska barwaaqoobay. ilaahay laakiin waxaan rajeynayaa rabbi subxaana wa tacaala cimrigeenna iyo waqtigeennaba in ilaahay subxaana wa tacaala inuu barakeeyo. adduunye qaymo maleta waa laga tegayaa, harka labadiisa gelin waaye, war hooyeyna adduunyo isku ilaawin. waxaan rabaa inaan idinla wadaago run ahaantii aayad aada ii taabatay iyo axaadiis rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam. wadciga maanta aan ku jirnana runtii aan rajeynaya inay baraarujin inoo noqoto. waxaan halkan kala hadlayaa hooyo kastoo Soomaaliyeed, gabar kastoo Soomaaliyeed iyo gabar kastoo muslimadaba oo maaragtay maqaalkaygan u gaaro. runtii iyo qof kastoo muslimaba rabbi subxaana wa tacaala ilaahay waqtigeena cimrigeennaba allah inoo barakeeyo. rabbi subxaana wa tacaala waxaynu leenahayna kuwa khayrka ku hadla allah ina ka dhiga rabbi subxaana wa tacaala. meel kasta ay joogaanna xasuusnaada maalin uun inay adduunyadan ka tegayaan, laana adduunya sideedaba qaymo ee leedahay ma leh. adduunya sideedaba qaymo ma leh, waa harka labadiisa gelin. waxaa laga yaabaa qof maantay saacado ama daqiiqado cimrigiisa ay ka dhiman yihiin inuu khayr noloshiisa u ka camiro oo khayrkaasu adduunyada kaga baxo, ama qof baa laga yaabaa daqiiqado uga dhiman yihiin ama saacadba ha ato inuu shar intuu ku camiro ay sidaa ugu gabagabowdo. laana ma ogid meesha laynoo soo jiro. run ahaantii ilaahay subxaana wa tacaala baa og, laakiin muhiimadda maxay tahay inaynu markasta noqono kuwa ilaahay subxaana wa tacaala ka fekeraya iyo inay ilaahay u aroorayaan maalin uun inay rabbigooda la kulmayaan subxaana wa tacaala jalla fi culaa jalla jalaaluhu. aayad suuratu albaqara ku jidha runtii aad bay qalbigayga u degtay. ilaahayna waxaan rajeynayaa rabbi subxaana wa tacaala aniga adinkaba in ilaahanta intaasaynu isxasuusinayno in ilaahay subxaana wa tacaala ayna ku anfaco. aayaddaasita suuratu albaqara waxa weeye aayadda 281. ilaahay waxaana lagu tilmaamay culimadeena ku tilmaameen run ahaantii aayaddii ugu dambeysay oo kitaabu rabbulcaalamiin soo degtay inay tahay. aayaddaasita waxa weeye ilaahay subxaana wa tacaala jalla fi culaa jalla jalaala uu yiri ilaahay wattaquu yowman turjacuuna fiihi ila allah, war ka baqa maalin la idiin celinaya ilaahay subxaana wa tacaala. uma markaa kadibna tuwafaa kullu nafsin maa kasabat, naf kastana loo oofinayo wixii ay shaqaysatay. kullu nafs, naf kasta waxaa loo oofinayaa wixii ay shaqaysatay. wahum ayagoo laa yudlamuun, aan la dulminaynin. maxay tahay? qof khayr la yimina khayrkiisii lagama naaqusinayo, mid shar la yimina yaa iyo xumaan iyo dembi shaqaystana waxba laguma darayo. intiisii unbaa maaragtay laga oofinayaayo maaragtay la siinaya, intiisii unbaa loo oofinayaa oo la siinayaayo maaragtay u helaya abaalkeedii. khayr haddaynu samayno khayrkii abaalkiisi baynu helaynaa, xumaan haddaynu samayno xumaantii abaalkeedii oo rabbi subxaana wa tacaala ina ka jaasa marinayaana helayaa. sidoo kale nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir. waa xadiis saxiixa abu hurayra warinaya radi allahu tacaala canhu ardaah, waana muttafaq way xadiiska. man kaana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut. qofka alla rumaysan iyo maalinta dambe khayr ha ku hadlo, haddii kale ha iska aamuso. marka maantay nolosha aynu joogno iyo xaaladdu meeshay marayso, runtii qof kasta adduunkan iska gabagabada ah, adduunkan xaaladihiisa oo ay meeshay marayaan ujeedo. walaalaheen maantay aada ujeedo inagu cunayno cabayno, walaalaheenna maanta aan arkayno reer qasar, reer falastiin, ilaahay raalliha ka noqdo. ilaahay intii dhimatayna shuhadada allaha ku daro aqbalo, intii dhaawacna allaha boogadhayo, intii maaragtay haraadsanna allaha waraabiyo, intii gaajaysan allaha quudiyo, kurbadooda iyo walwalkooda allaha faydo. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa rabbi subxaana wa tacaala inuu culayskan ummadda islaamka ka kor qaado, ummadda muslimiinta ka kor qaado, arrimaha maanta taagan ilaahayna u gargaaro rabbi subxaana wa tacaala. ilaahay taasaan weydiisanaynaa. wixii cadowga oo sharana ilaahay subxaana wa tacaala dhuuntooda uu ka celiyo, cadowga iyo sharka ay wadaan ilaahayna islaamka mideeyo, midnimadiina soo celiyo rabbi subxaana wa tacaala. taasaan ilaahay weydiisanaynaa.
runtii qalbiga muusan ku xanuunaynin adduunku maanta meeshuu maraya iyo aqoru zamanka lagu jiro iyo xaaladuhu meeshay marayaan iyo innaga dad badan maantay nimcada ay haystaana ilaahay u barwaaqeeyey haddana aan loo isticmaalaynin sidii ilaahay subxaana watacaala u raalli ka ahaa runtii aada iyo aada waxa u murug badan weliba inagu haddaynu haweennahay haweenow yaa aakhiradeenna aan ka fikirno maantay dad badan yacni waxaa laga yaabaa social mediaha maaragtay ku jira ama aaladan maaragtay wax lagu kala gudbinayo maaragtay ku jira inay maaragtay waqtigoodii iyo cimrigoodii ku dhuminayaan waxaan alla raalli ka ahayn dadkii ugu yeerayaan ilbaabadii cadaabta ugu yeerayaan ilbaabadii saciiro ugu yeerayaan waxyaalo fidno ah oo ilaahay raalli ka ahayn inay la wareegayaan dadna waxaa laga yaabaa khayr iyo wanaag inay ilbaabadii jannada taagan yihiin oo dadkii khayrkii ay ugu yeerayaan marka adigu tee tahay bal isfiiri maalinta intay sameyna wata ka baqa maalin buu yiri ilaahay la idiin celinaya ilaahay war ilaahay aan ka baqano naftayda iyo tiina waxaan u dardaarmayaa waa cabsida ilaahay rabbi subxaanahu watacaala jalla fi culaa jalla jalaaluh inaynu asaga ka baqano aynu ogaanana ilaahay inaynu u noqonayno waqtigaaga iyo cimrigaaga intaan waqtigu kugu imaan aynu ka faa'iidaysano maanta waa hadlaysaa berri maalin baa imaan doonta aan la hadli doonin maanta waad maaragtay waxbaad shaqaysanaysaa waxbaad kasbanaysaa maalin baa imaan doonta aan la shaqo aysan jirin maanta ilaahay subxaana watacaala jidkiisii ayaa culimadeena khayr allah siiya intaa inoo ku yeerayaan intaa ilaahay layna xasuusinaya maanta haddaynu ajiibin oo maqal nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhaxalkiisii aynu qaadan oo kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam halkee u soconnaa marka halkaynu aadaynaa halkee uga soconnaa maanta ha noqonin gabar yahay hooyo yahay walaal yahay anoo la hadlaya run ahaantii gabdhaha walaalahaya wiilasha walaalahaya maaragtay hooyooyinka walaale maaragtay na dhalay oo waalidiinta ah laana hooyooyin badan baa laga yaabaa waqtigoodii in hawlo kale lagu mashquulay meeshii guriga aakhira loo shaqaysan lahaa meeshii caruurta iyo nafteennaba inu ilaahay ku xiri lahayn ilaahay inu u baryi lahayn rabbi subxaana watacaala in waxyaalo badan oo adduunyo ah lagaga mashquulay adduunya qaymo ma leh adduunyada waa ka tegeynaa waa harka labadiisa gelin muhiimadeenna ha noqoto in aakhiro loo shaqaysto guriga aakhiro la qurxiyo la-anna taas ayaa ina mudan harkii aakhiro ayaa ina anfacaya adduunkan waxba ma aha waa laba beri rabbi subxaana watacaalana quudkaaga iyo risqiga waxa aad cunayso quudanayso waa wax ilaahay subxaana watacaala inoo qoray waaye ilaahay waa wuxuu qoray waana helaynaa nabigana calayhi salaatu wasalaam jibriil calayhi salaam wuxuu u sheegay naf inaysan dhimanaynin ilaa ilaahay u oofsato oo hesho wax alla wixii alla ugu talagalay wixii risqi ahaa alla ugu talagalay ilaa ay oofsato naf tegi mayso waxaad marka dhuuntaa marinayso ilaahay subxaana watacaala waa kuu qoray maalintii xab iyo biyo ahayd uur hooyaa ku jidhay ayaa lagu qoray waana helaysaa rabbi subxaana watacaalana waa ku siinayaa laakiin maxaa layna ka raba xalaal inaynu ku raadsano jid xalaala inaynu u marno jid xaaraana inaynu u marno maanta magac raadis ama waxbadso ama maaragtay caan noqo inay diintii ilaahay kaa kaxayso oo ilaahay kitaabkiisii iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu in lagu dhaqmo ay kaa kaxayso oo shaydaan uu xargaha inoo lulo oo asagu ina kaxaysto runtii aad bay u xanuun badan tahay waxyaalaha maanta dhacayo culimadu ay ka digayso culimadu ka hadlaysa allah cimrigooda raajiya inoo barakeeyo culimadeenna runaantii waxyaalo badan aynu arki jirin ayaa maanta soo baxay oo weliba haween haddaynu nahay aada loogu mashquulay war guri adduunye qurxintiisa waxay taraysamaaye war maaragtay waxyaalaha maantay yacni aan waxbaba inoo siyaadinayn in laba laysu qabsanayo dumarkii in laba laysu jiidanayo maxaynu ka faa'iideynaa taa waxba ka faa'iidi mayno waxna maaragtay in dadka cawradoodii lagu kala mashquulay qofkii qof walaalkiisa cawradiisa raacraacana hadda nebigu waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in ilaahay isagana cawradiisa raacraacayo ilaa xataa ay noqoto gurigiisa dhexdiisa in ilaahay uu ku fadeexadeeyo marka maxaynu taa ka helaynaa waxba ka heli mayno in fidno lagu noqdo nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ugama aanan tegin buu yiri gadaasheeda fidno uga daran ragga haweenka haye gabar yahay marka adigu iswa xadiis saxiixa way Usaama ibn Sayd radiyallahu ta'ala anhu arda baa warinaya xadiiska muttafaqna waa xadiiskaas ka waran in yani adigu maxaa tahay marka aniga adigu inaynu isfiirno anigu ma waxaan ahay
kuwaa nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam fidnada haweenka fidnada ku noqonaya ragga oo nebigu calayhi salaatu uga digayo oo maaragtay in lagu baraarugo adigu inaynu ilaahay ka magan galno inaynu fidno ku noqono ragga muslimiinta ah ay nooc yihiin inaynu fidno ku noqono inaynu xataa dumarkii maanta fidno isku noqonaya qaar baa guryihii xataa qaarkii kale ka saaraya waxyaalo beena iyo adduunyo intay u akhriyaan لأن ما أنت حوي قفك مؤمن كمسلم كأسيدو نفتي سلا جعلي هاي إن ولا الكي سلا جعل عضو ولا الكهدو خير هايست إن أدو دعيس إن هذا الله أبرده إن هذا خير كا يوراجع الله جع شاي حدي نبت هاي نبك أتكلع عرته عدو قلنا حدا أسجع وقطرته مركا الدنيا قيمة مال ورهو يسون نقطة ورففروا إلى الله إلهي سبحانه وتعالى أنو عرفنا ور الدنيا قيمة مال ورهو توين نكتجينا ورهو وينو ورسون نقطة wargabar yahay isfiiri war adigu ilaahay ka magan gal inaad adigu fidno ku noqoto ragga islaamka ah inaad adigu naftaadi aad halaagto laana nafteena iyo ina halaagin yeeno maartay waxyaalahan maanta miiriyaha jira iyo maartay adduunyo badsi iyo magac raadis yeeno dharka u dhiganay yeeno hadallo iyo waxyaalo xun oo fidna ayaynu ku hadal laana waaka man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut nabiga calayhi salaatu inuu digay qofkii alla rumeeyay iyo maalinta dambe ya inuu ku hadlo khayr hadii kale iska aamusan laana dadkeena salafka saalixiinta maxay ahayn kuwa dhaha carabka wax kaga fiican male in sijni dheer xabsi dheer in lagu rido la geliyo ka khayr ku hadal wad qaniimaysanaysaa ama aamus wad nabadgelaysaa ibn Saudi khayrkiisa iyo hadalladii wanaagsanaa xikamka ay dhihi jireen ridwaanullaahi ta'ala ajmaciin salafkeena khayr يعني ما أنت واحد لا صاحبته وجرج آخر لجو ميزانك آخر لجو يعني عسرية وجرج آخر قبر جن إنه وجوه الرئي منازش وجوه الرئيس إنه آخر كنت جن وقبر جني إنه ما عرفت دجان كيسي إنه كل ديار سنة يا ميزانك آخر أنا كل عسر إنه وكتاب رب العالمين هل كيك جونا كتاب رب العالمين قبر يهي هو يهي إسفيري قفي ومسلم كإسفيري هل كيك كتابك إلهي كتاج انتهي أفر يلا باتنك الساعة وريجيا ما آخر السنة سوق على فرتي أنتي الله كابري معناه هذه ما براتي مسيسياتي كاسة اللي بقولي بانا درجات كي جنة يا لقوا فولا يا أنتي جنة الدرجات هاي وكتابك إلهي بالير هل كامرك كجونا لأن نكي دونه إنه إلهي الله صاحبه وإنه القرآن كوهش هذا صحيح تلمذ إلهي وهلك قرآن كيس إنه هل لقدكتو ويا أسجل الله صاحب لقدكتو الدنيا ذا هوان يا hooyadii Allah u naxariisto qabrigeedana Allah u nuuriyo iyo waalidiinteena dhan Allah u aabiyo hooyo iyo waalido dhanba Allah u naxariisto waxay dhihi jirtay hooyo adduunyo farxad male waxay dhihi jirtay hooyo saaxiib kitaabka Ilaahay baa la noqda haween saaxiib male waa run oo xaqiiqa laana maanta markaad aragtay haweenkeena waxa dhexmaray iyo loolanka jira iyo adduunyada lagu tartamaya xaaladdu siday marayso runtii waa sida waxa weeye qof kasto saaxiib walaaltinimo walaalo diimeed hal noqdo kitaabka Ilaahay sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam aan ku walaaloono ayaga aan isku jeclaano ayaga hal iskugu yimaado taasa nabadgeliyadu ku jira iyo inaynu Ilaahay kitaabkiisa miisaankeena aakhiro inuu ku cuslayno 24 saac wareega isaga ka qaniinaysan isaga barano isaga iskugu yeerno Ilaahay ha nagu hanuuniyo rabbi subhanahu wa ta'ala laakiin ayaa la noqonin gabar kasto is ogow hooyo kasto walaal kasto is ogow adigu ma fidna ku tahay ummadda islaamka ma kuwii nabigu ka digay baa calayhi salaatu wasalaam ilaahu iga badbaadina ilaahu kuwa ha igu darinde naftaadana dib u muraajaciyo dib u fiiriyo maxaa ku sugantahay maxaa gudbinaysaa ma ilbaabkii naarta taagantoo dadka naar ugu yeeraysa iyo fidno iyo adduunyo ya iyo halaag mise dadka khayr ugu yeeraysa oo gacanta qabanaysa oo wax khayr baa laga dhaxlaya laana qof kasta wuxuu ka tago raadka ka tagno bari asaga ina sugaya wa ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ina kula xisaabtamayo marka run ahaantii naftayda iyo tiinaba cabsida Ilaahay u dardaarmaya adduunyo qaymo ma leh tan waa laga tagayaa waa harka labadiisa galin maanta aan Ilaahay u toobad keeno maanta aan Ilaahay u soo cararno walaashayda muslimadoy Ilaahay maanta jaanis baad haysataa jaanis baynu wada haysanaa waxa ku jirno hadaynu ka baxno Ilaahay u toobad keeno Ilaahay waa jeceliya ku toobad keeno sidoo sheegay rabbi subhanahu wa ta'ala jalla fi ula Ilaahay booski wax alla wixii ka dhaco xumaanaha wanaag buu alla kugu bedelay sidoo Ilaahay kitaabkiisa ku sheegay marka niyada khayr u sheeg ha walwalin jaanis baad haysataa maanta caafimaad baad qabtaa xoogaaga baad qabtaa quruxdaas alla ku siiyay qiimahaas alla ka muujiyay ha iska dayicin shaydaanka iyo cadowga yeysan kugu ugaaranin yeysan diintaadi ka burburin
yaysan ummadii yacni ummadii laana qof kasta oo ku fidnooba waxaad duubaysa iyo waxaad gudbinaysa iyo waxaad leedahay berrita aakhiruu soo xaadiraya ya adna asagii baa fidnaysa adna hadda booskaagii waa kuu buuxiye waaya miisaankaagii wixii khayr ahaa adiga qaadanaya qofkii la-ana maantay qofkii aad dhibaato u geysato dhaawacdo ya waxa weeye hadda berrita oo la isu soo xaadiraya kanaa iyeelay kanu iyeelay kanu iyeelay mid kasta waa imaanaya يعني نبي نواسيد وشيء عليه الصلاة والسلام صلوات ربي والسلام عليه دد إن إيمانا يعني مفلس وير مفلس كما قرن يسين قفك مفلس كأمة إذا الرسول عليه السلام كل صحابته ويدي إذا قفك مفلس كقفك شيء درهم دينار تون عن هي سنين نبي عليه الصلاة والسلام مفلس كأمة إذا حوا قفك أنتو آخرة يماد صلوات ربي والسلام عليه آخرة أنتو يمادو وحر بورو الصلاة بورو صونة بورو صدقة بورو حسنات الله إيمانيا halkan ayaa u safan u taagan kan dhahaya waa caaye kan dhahaya waa idilay kan dhahaya waxaan iga qaatay kan dhahaya waxaan igu subay kan intee hadhoodii ilaa uu soo istaago wixii oo dhan lagala tago markii lagala tago ya eber uu soo istaago hadda intaasuna meeshii safkii weli ugu jirto hadda kanuu cirdigiisi ku xadgudbay kanuu dhiig ka daadiyey kanuu xaday kanuu halkay hadhoodii maxaa la sameeyaa wuxuu isku furto bal xasanaadkii buuraha dhamaa muxuu isku furanayaa markaa waxa weeye asagi dambigoodii baa intii la qaaday intii u geysto qofka in la mido dambiga intii la qaaday ogada laga saaray hadda qof dambi ka buuxana jannadii ma aadee ya cadaabta waa in lagaga soo dhaqo ilaahayna badbaadiyo ilaahay kuwa badbaado oo jannada galo oo cadaabta alla ka badbaadiyo allahayna ka dhigo maanta jaanis baynu haysanaa aan soo noqono ilaahay aan u soo noqono ilaahay aan u toobad keenno maanta fursadda aynu haysana la-ana ma ogin waxa inaku soo wajahan dadkeeni salafka saalixiinta maxay ahaayeen kuwa dhaha habeenka hadduu u yimaado alla talo caawo macawadaydiba kadibna waxay ku xambaari jirtay yani macawadaan guuraya macawadaan alla u tegaya maca haggan markaan alla la kulmaya cibaadaday ku xambaari jirtay inay ilaahay u soomaan oo u salaadaan oo u cibaadaystaan oo quraan akhristaan oo salaatuleyl u tukadaan oo khayrka u badsadaan habeenka ilaahay xusaan dikriga ilaahay ma subaxdii goortay u timaadana alla saaki masaakadaydiba sookays subaxdaydiba an ilaahay ku xaqiisa u wareegaya kadibna waxay ku xambaari jireen naftooda inay cibaadadii iyo khayrkii ay halkaasito ka amba qaadaan maalinta khayrkii ku dadaalaan laana qof ka fikraya inuu dhimanayo qof ka fikraya ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu sugayo oo aakhira inay sugayso rabbina inuu la kulmayo qofkaas muxuu sameeynaya qofkaas wuxuu ka fikraya waxa uu hadlay hadalkiisa waa ka fikraya miisaan buu leeyahay ficilka uu gacanta ka sameeynay miisaan buu leeyahay ficilka uu lugta ka sameeynay meesha u soconaya miisaan baa wixii dhan uu ogyahay waa dadaalaya fattaqullaha mastadactum buu ku jiraa marka taas alla ka rabaa taas naftayda iyo tiinaba taas aan dardaarmay ilaahay aan ka baqano aan soo noqono jaalis baynu haysanaa fursad baynu haysanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulankiisana ina sugaya geeriyana waa ina ka dambaysa malaka moodna waa kan yaa meelu inoo soo jirana ma ogin waa tegay sooma noqon waa seexday sooma kicin maantana waa arkaysa mutaqaflihii inay aada u badatay marka waxyaalaha maantay la wado oo social mediaha ku jira iyo howlaha la wado iyaynu noqonin kuwa ilbaabada naarta taagan oo dadka ugu yeeraya aan ku dadaalna inaynu noqono kuwa ilbaabada jannada taagan iyo khayrkii wata oo dadka ugu yeeraya ilaahay kuwaasaynu ku daro waxa la wixii khayran ku hadlay fa min allahi subxaanahu wa tacaala ilaahay baan ku mahadsan allahuma laka alxamdu walaka shukru wixii aan gafana naftayda iyo shaydaan aliya rasuulna beri bakiyin waxaan isu dardaarmayna in dikriga ilaahay carabka aan ku hayno kitaabka ilaahay ugu horeeyo iyo maartay rasuulka hadalkii qaaliga inuu ka tagay calayhi salaatu wasalaam uu yiri ahabba kalaami ila allah hada lagu hadlo alle afar buu u jecel yahay subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar kadibna aan dhahno allahumma ighfir li allahumma arhamni allahumma arzuqni ya ilaahu subxaanahu wa tacaala hayna waafajiyo hadallada wanaagsan ku miisaankooda ku xamirana allahna ka dhigo alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay in ummahaadkii iyo saxaabiyaadkii oo duuban baa ku jira meesheenan aan ka qaniimaysano inoo gudbiya gabdhaha walaalihiina waalidka kulli walaalaha inoo ku gudbiya ilaahayna ku ka qaniimaysta allahayna ku daro kuwa macoodana allahayna ka dhigo maaragtay tan kale maaragtay haddana maaragtay khayrkan inuu gabdhaha usii gudbino walaalaheena iyo waalidkeena iyo walaalaheena iyo ehelkeena inay ka qaniimaysano khayrkan qofkii intii fidisay iyo intii gaarsiisay walaalahood ilaahayna ku daro man daalla cala alkhayri ka faacilihi siduu rasuulku yiri calayhi salaatu wasalaam ka khayrka tusinaya dadka uu diraya oo u gudbinaya oo khayrka ugu yeeraya
inuu maaragtay uu yahay sidii qof ajarkii isaguna sidii oo kale isagoo kan sameeyey iyo kan gudbinayaba inay isku ajar yihiin oo khayrkaa helayaan. ilaahayna waafajiyo tawfiiqda iyo tubtada toosan, shar iyo shaydaanna allahayna ka xijaaba, allah idin barakeeyo, allah idin nuuriyo, allahayna wada nuuriyo, adduunka barwaaqo aakhiro janno, wadankeena wadanada islaamkana allah islaaxiyo, walaalaheena culayska allah ka kor qaado, ilaahay cadowga iyo sharka iyo shaydaankana allahayna ka xijaaba. alxamdulillahi waxaynu haysana dad iyo duunyo, allah inoo barakeeyo, duriyada islaamka, aswaajteena, caruurteena, waalidkeena, intii horumarteena allah u naxariisto, intii noolna allah inoo barakeeyo. alxamdulillahi rabbil caalamiin, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.